Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Kobciya Academy. Alaabad uga barateen cashiro kala duwan. Maanta waan ka hadlanaa su-aal in badan la soo weydiiyo oo ah shahaadada ACCA waa maxay iyo warbixin ku saabsan. Marka waxaan kaga hadlanaa shahaadooyinka accounting-ka ugu sarreeya ugu heerka sarreeya. Shahaadada mid ka mid ah ayaan ka hadlanaa qodobkan cashirkan. Shahaadada loo yaqaano ACCA waxay ka mid yihiin shahaadooyinka loo yaqaano professional qualification iyo academic qualification ma jira. Marka shahaadooyinka professionalka ay ku jiraan waa shahaadooyinka dadkan employers ama dadka shaqaaleysiya aad ugu baahan yihiin, gaar ahaan hay'adaha shirkadaha waaweyn iyo dhammaan ganacsiyada kala duwan intii ugu badneyd wadanka looga baahan yahay. Marka waxaan kaga hadlanaa qodobo kala duwan. Qodobada ugu horeeya aan kaga hadli doono waa maxay shahaadada ACCA ama ACCA loo soo gaabiyey. qodobka labaad waxaan kaga hadlanaa waxay foundation accountants in ACCA. qodobka labaad waxaan saddexaad kaga hadlanaa syllabuska ama examska iyo leveliska kala leeyihiin iyo iyadoo detail kaga hadlanaa. qodobka afaraad waxaan kaga hadlanaa eligibility yaa loo ogol yahay in ACCA student noqdo. qodobka labaadna waxaan kaga hadlanaa exceptions. haddaad shahaado hore u sidatid maxaa lagaa deyn karaa 13 imtixaan uu leeyahay ACCA. waxaa jira mar aad shahaadada sidatid la dhahayo shanta ugu horeeya lagaa cafiyay ama ma gelisid, inta wixii shanta ka dambeeya ayaad geli kartaa oo waa exemption lagu sameeyey. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa saad u noqon kartaa ACCA member oo iyaguna steps la raacayo ACCA member soo noqotid ama qof ka tirsan ACCA. marka ACCA markaad noqonaysid stages bay soo maraysaa, taana si fiican u sharaxnaa. qodobkeena lixaad wuxuu noqonayaa learning partners ama dadka ACCA dhiga ama dadkan dhiga wax ka leeyihiin ranking bay ka leeyihiin. ACCA baa siisay platinum baa u sareysa. marka platinum micnaa qofkaas iyadana waa sharixi doona gold iyo silver waxay kala yihiin. why you should get the ACCA qualification, sababta aad u doonaysid waa maxay, faa'iidooyinka laga hadlay halkan. marka qodobka dambeyn ka hadli doonaa ACCA Somali context, imtixaanaha kala lagu galaa, maxaa Soomaalida dad degree Soomaali jaacada dalka dhameysid waxa laga deenayaa, waxaasoo dhan kaga hadlanaa. asxaabi ha moogaanina. qodobkeena koowaad aan kaga hadlano waa maxay ACCA. ACCA maxaa loo soo gaabiyey? ACCA waxaa loo soo gaabiyey Association of Chartered Certified Accountants ama waa ururka xisaabaadka certified lagu ogol yahay ama lagu kalsoon yahay ayaa loo yaqaana. waa the largest account professional qualification in the world. waana kan ugu weyn adduunka marka laga hadlayo dhinaca adduunka oo dhan qualificationka, gaar ahaan dhinaca xisaabaadka. waxaa members ama ka ah 200,000 oo qof ayaa members ka ah, 600,000 oo kunna way dhigtaan. wadamada ka kala shaqeeyaana waa 180 wadan in ka badan ayay ka shaqeeyaan. marka waa shahaadada heerka leh gaar ahaan waxay ka dhisan tahay wadanka loo yaqaano wadanka UK ayaa headquarterkeedu ku yaala. waxayna leedahay partners kala duwan, wadamo kala duwan ayay faracyadeeda ka samaysaa. hadda waddanka Africa oo kale Egypt way ku yaalaan, Kenya way ku yaalaan, wadamo kala duwan way ku yaalaan. ACCA oo anigii hore soo sharaxnay waa largest ama leading international accountants body ama waa xubin ama ururka ugu sareeya dhinaca accounting-ka international ahaan. marka waxaa jira shahaadooyin kala duwan ayaa jira la diyaariyo dhinaca accounting-ka. waxaa ka mid ah CPA, CA, shahaadooyinku cidaasi ka mid yihiin. marka waxaan rabnaa inaan mid casharo mid walba gaar ah u sharaxno. marka ACCA saasan intaas ku soo goobeen. intaas loo soo gaabiyey Association of Chartered Certified Accountants. waxaa jira intaad ACCA markaad diganaysid waxaa jira foundation level baa jira ama ACCA foundation diploma ayaa lahaa. marka ACCA intaad guda gelin waxaa jira stage la maro oo ACCA-da ka hooseysa micnaa intaad ACCA caadi noqon. waxaa jira ACCA guud ahaan waxa la galaa 13 imtixaan. marka waxaa jira 13 imtixaanka koowaad waad bilaaban kartaa adoo oo foundationka soo maray. option ku siinaya inaad foundationka soo martid. marka foundationku waxay ugu talagaleen qofka ardayga secondary-ga oo kale ugu secondary-ka soo baxo maadaama uu business terminology fara badan garaneyn ayuu base buu badan yahay. marka waa 4 imtixaan
afar imtixaan oo base iyo saddex imtixaan oo ACCA caadi la wadaagto ka oo todobada imtixaan imtixaanka koowaad waxa loo yaqaan FA1 baa loo yaqaanaa waxa lagu talagalay recording financial transaction baa loo yaqaanaa paper marka waa course-ka waxaad ku baranaysaa qaabka transactionska loo record gareeyo MA1 baa jirta iyada management information ayuu wuxuu saarayaa management accounting-ka ama management information-ka waxyaalaha qofka managerska xogta looga baahan yahay sida cost accounting iyo waxaas wuxuu ka saaraya qodobka paperkeena saddexaad wuxuu noqonayaa FA2 maintaining financial records marka wuxuu ku xiran yahay FA1 ku xiran yahay kii uu sii faahfaahinaya recordski marka la record gareeyay maintaining iyo reporting-keedii ayuu yara faahfaahinaya qodobka kalena wuxuu faahfaahinayaa MA1kii waa MA2giisii labaad managing costing and finance iyada cost-ka iyo waxyaalaha relating kala ayuu xooga saaraya marka afartaas waa foundation marka adoo ACCA intaad ACCA caadi u bilaabin ayaad afartaa course hore u bilaabaysaa marka afartaas wuxuu noqonayaa base fiican buu noqonayaa ardayga siba secondary ka soo baxay base fiican buu tahay inuu uu galo si gaar ahaan ACCA na recommendation bay ardaygu markuu bilaabay wax dhahaysa is foundation ka ayaa ku fiican inaad ka bilowdi because more terminology ayaad halkan ka fahmaysaa afartan imtixaan haddaad eegtina waa afar imtixaan oo very easy ah oo waana goobo kale waa multiple question waxa macnaa answers laga shaqeynaya ma jiraan waa multiple question trick question isiiba marka afartaas ayaa ardayda anagu kula talinaa maadaama ardaygu bilaabayo waxa jira saddexdan dambe waxay la wadaagtaa ACCA-da caadiga la wadaagtaa marka waa 7 imtixaan 4 imtixaan oo base saddexna waxay kala wadaagtaa ACCA marka accounting in business oo ah FAB baa loo yaqaanaa FMA na waxa loo yaqaanaa management accounting FFA na waa financial accounting marka intaas waxay la wadaagtaa ACCA da marka la bilaabayo wax laga bilaabaa accounting in business FAB ga laga bilaabaa wax lagu xijaa management accounting qof waxad ACCA bilaabay laakiin haduu foundation bilaabayo afarta hore iyo saddexdan tan marka waxay sameeyaan qofka todobada dhameeyo wax siiyaan shahaado siiyaan oo wax loo yaqaan ACCA foundation diploma oo qofkaas uu shahaado ku shaqeysan karo oo qofkaas wax la hubo inuu accounting full accounting yahay uu shaqadii accounting-ka uu qaban karo marka todobada imtixaan ayuu yaqaan wax loo yaqaan ACCA foundation halkan waxaan ka hadlaynaa hadaba syllabus-ka ama level-ka exam-ku leeyahay marka guud ahaan ka soo hadalay wuxuu leeyahay imtixaanada la galo ACCA-da waa 13 imtixaan markii hore 14 la gali jiray imika waa laba paper waa la isku daray 13 imtixaan baa la galaa waana 3 level 13 ka imtixaan saddexda level ee kala duwan bay ku kala biirayaan levelka koowaad waxa loo yaqaanaa knowledge level waana 3 imtixaan uu foundation kala wadaagayay ayaa saddexdan marka saddexda hadad gashin kan saddexdan laga boodsiinaya skip baa la siinaya marka ama saddexdan aad ka bilaabaysa kaaka ugu koowaad aad ka bilaabaysa accounting in business ama foundation ka bilaabay marka ni taana si fiican soo sharaxay accounting business waxa laga hadlaa badanaaba business-ka structure-dooda managing-kooda waxaas oo dhan foundation waa Google Hard buu yahay management accounting wuxuu saarayaa cost accounting buu ka saarayaa budget-kii wuxuu saarayaa waxyaalaha la taxalluqa management information oo warbixinta la siinaya managerska qodobkeena paper-ka saddexaad waxa loo yaqaan financial accounting sidoo loo record gareyn lahaa xogta financial-ka ayuu isaguna xooga saaraya marka imtixaanadoodu waa very easy not complicated dadku wuxuu haystaa inay complicated yahay imtixaanadu easy waa trick waana imtixaan faham ku saleysan oo qaybid kuma saleysna guud ahaan marka imtixaan kala baasayona cotton hadad ka sareysid markiskaagu wad baasaysaa hadad koobi content wad baasaysaa marka saddexda hore waxa loo yaqaanaa knowledge level baa loo yaqaanaa marka xog waxay saaraysaa inaad knowledge-ka inaad xogta aad haysid qaybahan dambe waxay xooga saarayaan in applied qaybtan waxa loo yaqaanaa skill level oo qaybta labaad ee ACCA marka qaybtan waxay saaraysaa skill in macnaa waxaad baratay inaad context aad ku dabiiqi kartid haddii formula lagu baray in aad scenario inta lagu keeno scenario-da aad formula aad ku apply gareyn kartid
ay ugu talagaleen marka waa skill bay ku siinayaan skill baad ka baranaysaa skillkuna waa nidhi wuu kasii sareeyaa knowledge-ku marka hore qofka aqoonta u bartaa skill buu waa wixii buu macnaa gacanta ka qabtaa paperkeena afraad wuxuu noqonayaa corporate and business law wuxuu ka hadlayaa shuruucda business law waa maxay contract waa maxay maxaa contract-yada jabiya waxaas dhan buu ka hadlayaa marka waxaa jira laba law baa jira UK law ah oo shuruucaha UK wadanka United Kingdom inuu inaad imtixaanka ku gashid iyo mid global ah oo adduunka oo dhan ugu talagalay labadaba aad kala dooranaya waxaa jira wax loo yaqaan performance management halkana waxa laga hadlayaa paperkaasna oo paper 5 waxay ka hadlayaan badanaaba waxyaalaha warbixinta managementigu u baahan yahay sida hadii budgetka noqoto forecastingka waxyaalo badan u baahan yahay waxyaalahaas oo ka hadlayaan qodobkeena wuxuu noqonayaa paperkeena waxaan wuxuu noqonayaa taxation cashuuraadkii maxaa la cashuuraa qaabka cashuuraadka waxaas oo dhan paperka toddobaad wuxuu noqonayaa financial reporting in wixii financial reporting hadee waxaan kusoo baranay xaggii hore knowledge level financial accounting laakiin halkan wuxuu soo dhigay reporting consolidated financial statement waa maxay waxaas oo dhan muxuu soo saaray qodobkeena ama paperkeena sidee wuxuu noqonayaa audit and assurance waa maxay auditing waa maxay assurance waxyaalahaas oo dhan wuxuu ka saaray very interesting topic oo aad aan u xiisano qodobkan sagaalaad ama paperka sagaalaad wuxuu noqonayaa financial management wuxuu sameynayaa waa maxay working capital management waxyaalo badan oo la taxalluqa businesska marka waa paperta aad u fiican haddaba waxaa jirta wax loo yaqaano skillkaas levelkaas waa levelkii labaad levelka saddexaad wuxuu noqonayaa professional level waa levelka dadku qofku uu aqoontiisa uu scenario aad u waaweyn uu ku analyze gareynayo una ku implement gareynayo marka waxaa jira ilaa wuxuu ka kooban yahay isagu wuxuu ka kooban yahay 4 imtixaan laba essential ama wanad waajib inaad gashid labana wanad kala dooratay marka labada sare strategic business reporting waxay ku talagaleen in reportka businesska marka laga hadlayo guud ahaan qaabkii loo report gareyn lahaa ka kale wuxuu noqonayaa strategic business leader marka wuxuu ku barayaa leadership management iyo leadershipka qaabka aad u diraasay lahayd labadaas marka waa essential ma waa waajib in aad gashid labada kale afartan dambe optionalka ah waa afar imtixaan lama umad ka dooran kartaa marka waana advanced marka waxay paperskii hore aan u soo aragnay advanced koodii uu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa advanced financial management oo soo aragnay financial management oo ah skill level kan waa advanced financial management ama advanced performance management advanced taxation advanced audit and assurance marka ardaygu labadan afartan imtixaan dambe laba uu dooran karaa wuxuu dhihi karaa oo kale audit and assurance advanced ayaa galaya iyo financial management ama waxaan galayaa or advanced performance and taxation ikhtiyaarka adiga leh marka waa optional inaad afartan xabo ayaad 2 big baad ku sameeyay laba umad ka dooranaysaa intaas oo inta marka saddexda imtixaan saddexda level ku ka dambeeyo imtixaankiisu ka complete gareysay inuu ka adeer adag yahay aadna uma sii adkaa qofka laakiin hadduu casharadiisa dhigto wuu fahmayaa waana Soomaali badanna way diyaarisay qaana wada shaqeyna way diyaariyeen marka wax complicated ma aha ardaydan kula taliyeen insha Allah si noqdaan shahaadooyinka aadka loo tixgeliyo dhinaca shaqada haddaan guud ahaan chantuskan aan eegno waxay ku talagaleen saddexdan level iyadoo sawira marka waxay ku talagaleen applied knowledge 6 bilood bay ku talagaleen sida assumption-ka in qofku 6 bilood ku dhigto qofka dheereeyana inuu 3 bilood ku dhigto dhinaca applied skills-kana inuu 1 year ku dhigto dhinaca profession-kana inuu 6 bilood ku dhigto marka guud ahaan waxay ku talagaleen qofka caadiga normaalka ah inuu 2 sano ku dhameeyo shahaado ACCA marka muxuu benefit helaysaa ama uu helayaa qofku hadduu 9ka paper ama 9ka imtixaan u horeeya hadduu galo waxa la siiyaa wax loo yaqaano horta marka hore waxa sheegaya foundation hadduu foundationka uu dhamaystiro 7 imtixaan u horeeyay waxaan leeyahay 4tii foundationka iyo 3dii ku xigtay
hadduu dhammaystiro waxa la siiyaa shahaado diploma oo accountis ah. waa inuu qaataa module loo yaqaano ethical module buu qaadanayaa oo casharo aduu ethicska waxa ku saabsan. marka waxa la siinayaa shahaadada loo yaqaano diploma in accounting and business ACCA baa la siiyaa. marka qofka kale ee sagaalka imtixaan u horeeya dhameeya foundation kuma jiraan. marka sagaalka imtixaan u horeeya applied-ka iyo applied knowledge-ka iyo applied skills-ka dhameeya waxa la siiyaa degree baa la siiyaa sibad shahaada Oxford Brookes University baa siisa oo Ingiriiska ku taala. wuxuu sameeyaa only ethical module buu qaataa oo imtixaan oo waxaan leeyahay videos ah. wuxuu diyaariyaa research report ama research book na wuu qoraa oo una diyaariyaa. marka shahaadada waxa la siinayaa degree applied accounting ayaa la siinayaa. marka qofkii wuxuu isku helaya academic qualification iyo profession qualification labadii buu isku helaya. kan u dambeeyay ACCA dhamaystirtana waxa la siiyaa master baa la siiyaa. waana inuu ethical module labada dhigtaa. waxaana la siiyaa master in accountancy University of London baa siisa shahaadadaas siisa. marka qofkaas waxa soo faa'iido isku helaya labadii shay ACCA qualification and academic qualification oo shahaadaha ugu sarsareeyo ee UK ayaa la siiyaa. marka aad baan kula taliyaa dadka inay imtixaanka dhigtaan. qodobka waxaan kaga hadlaynaa eligibility and exception. eligibility yaa loo ogol yahay inuu imtixaan ACCA galo. waxaa loo ogol yahay qofku inuu 8 sano dhamaystirtay ka wen yahay. hadduu uu secondary dhameeyay waa inuu sitaa 65 uu ka sareeyo percentage xisaabaadka iyo Ingiriisiga waa inay konta ka sareysaa. English and minimum xisaab Ingiriisi iyo xisaabaadku waa inay 65 ka sareeyaan. xisaabaad dadka maadooyinka kalena 5 konta ka sareeyaan. qofka graduate kana ama qofka degree dhameeyna waxay siiyaan exception space yani aan arki doono. qofka hadduu degree dhameeyo exception space yani uma aha waajib inuu wada qaato imtixaanaadka oo dhan. imtixaanaadka qaar baa laga daayaa. hadduu degree dhameeyo direct line waxa laga daayaa afarta hore. hadduu master dhameeyo waxa laga daayaa ilaa 8 hore ilaa 9 hore. shahaadada kala duwan yihiin. marka shahaadaha wadankeena xagga damaanka ka arki doona haddii wax naga daayaan iyo haddii kaleba su'aasha halka damaanka ka jawaabaya. ACCA member saan u noqonaya waa in 3 stage maraa. marka ACCA member noqonaya waa in imtixaanaadkii wada dhameystiraa. kow waa inaan ethical module waa inaan qaataa ama waa waxa loo yaqaan videos ACCA diyaarisay oo ku saabsan topic very important ka ah ethics-ka ama akhlaaqiyadka wax loo yaqaano. qofkan xisaabiyaha waanu ethically waanu u dhaqmaa. kan u dambeeyana waa inuu leeyahay bear wax loo yaqaan practical experience requirement wax loo yaqaan. waa in uu qofku 3 sano ama 36 bilood uu ka soo shaqeeyay accounting uu ku soo shaqeeyay. saybo accounting uu ku soo shaqeysaa shirkad la dhihi karo waa shirkad weyn. halka waxa ku arki doonaa waa maxay learning partners ama dadkan ACCA tutorial ka dhiga maxay yihiin. ka waxa jira 3 ranki baa jira ama 3 level ACCA baa bixisa. marka waxa loo yaqaan platinum gold iyo silver. marka qofka platinum organization-ka platinum haysta waxa la siinayaa waa heerka ugu sareysa. macna qaabka wax u dhigayaan waa above the requirement. qaabka wax u dhigayaan macna wax ka sareeyaan wixii looga baahnaa. marka ACCA qofka ACCA platinum learning partner ka dhigta boqolkiiba adu 90 waa la hubaa inuu imtixaanaadka markas wanaagsan uu keeniyo. waxa ku soo xiga gold oo ka yar hooseeya darajada. waxaana u dambeeya silver oo ah macna isagu criteria-dii uu buuxiyay laakiin partner aad u xoogan maaha. marka partners-ka waxa kamid ah 3dana aan soo qaadan tusaale kala duwan yihiin. waxa loo yaqaan Kaplan and BB walawada ugu caansan ACCA dhiga. Kaplan and BB baa loo yaqaan. marka waxay leeyihiin laba book paperkii waxay leeyihiin laba book waxa loo yaqaan learning book aad wax ku baranaysid. bookna waxa loo yaqaan kit ama key questions-ka. marka book caadi wax ku baranaysid iyo book questions oo meeran. marka mid walba labada book baa la akhrisanaysa paper walba BB and Kaplan. marka BB wax ku fiican tahay BB-du
waxay bixisaa information fara badan in detail bay samaysaa. Kaplan 2na way soo koobtaa. Learn signalna iyaduna aad bay u fiican tahay, macasharadii bay leedahay videoisa dadkan kula taliya waana tajiibasti waa aad u jaban tahay. Waxa laga yaabaa inay marku siiso $1,000 ka qaato oo ay ku siiso imtixaanada oo dhan aad ka baraso videoisa kunkaan aad one time payment u yahay. dadkan taas aan kula taliya inay dhigtaan. Learn signal aad bay u fiican tahay. halkan waxaan ka hadlanaa sababtaan u dooranayo maxay SCCA. SCCA waxaan u dooranayaa because globally recognized, adduunka oo dhan ayaa laga aqoonsay. Marka ninka SCCA sita all over the world waad ka shaqeyn kartaa. Mareykan baad ka shaqeyn kartaa, waxaad ka shaqeyn kartaa United Arab Emirates, meesha doonaysa ka shaqeyn kartaa. Creative opportunities fursadaheedu aad bay ugu badan yihiin. Waxay ku siinaysaa xitaa tababar ku siinaysaa. Haddii marba SCCA laftigeeda waxa laga soo codsadaa shaqaale marka way kugu xiraysaa waxyaalahaas oo kale. waana forefront professional in micnaa shahaado industry accounting ay ugu hooseyso iyadu waa innovative studying and supporting xitaa waxay samaysaa inay ku caawiso researches ku siiso xitaa research draft aad adigu sii research garin kartid qaar diyaarsan ku siiso. marka aad bay ku caawiso sababahaas oo dhan ayaan u dooran kartaa SCCA because opportunities keeda badan, adduunka laga aqoonsan yahay, waana professional leading in accounts industry, waana waxay ku baraysaa waana supporting in exams and everything. qodobkeeni ugu dambeeya aan kaga hadlanaa SCCA in Somali context. SCCA-da qaabka loo dhigto Somali context. Somaliland Soomaaliya markaan kala eegno Soomaaliya horta muqdisho meelo kala duwan dhowr jaacado kala duwan ayaa imtixaanaadka lagu galaa iyadoo maca foundationkeedii iyo SCCA-dii oo complete arday dhamaysa xitaa waan la kulmay SCCA-da qaar exceptions loo sameeyay. marka muqdisho meelo kala duwan xitaa meelo lagu dhigo ayay leedahay. marka Puntland waan arkay meelo ay inkastay inta hoose aan arkay inta sare aan arkin inta imtixaanaadka ugu horeeya way leeyihiin. haddaan usoo noqono Somaliland gaar ahaan Hargeysa waxa keentay jaamacadda Golis loo yaqaano 4 imtixaan ay u horeeya. marka 4 imtixaan qofka hadduu galo opportunities buu tahay inuu sii wato. marka xitaa waxa aan arkay meelo lagu dhigo imtixaanaadka oo aad ka baran kartid. marka SCCA is not complicated, maaha adag maaha. qof walba oo Soomaali uu baran karaa accounting dhamay. waxay u baahan tahay dadaal iyo fara adeeg iyo samir bay u baahan tahay. qof wax looga baahan yahay inuu marka hore register gareeyo. lacagta registration lacag weyn maaha, ilaa $100 baa la isku register gareeyaa. sanad walba waxay ka qaadaysaa lacag registration fee intaad ardayga tahay. sanad walba $150 baa laga yaabaa in ka shubato intaad dhamaysid. maalinta dhamaysidna wax loo yaqaanaa member fee in laga qaado oo inaad SCCA ka tirsan tahay lacag bay sanad walba ka qaadaysaa. laakiin mushaharka ama qofku wuxuu soo saaraya mar walba ka badan waxa laga qaadayo 1% maaha. fursado fara badan way leedahay. qofku marka hore SCCA student buu ku bilaabaa, kadib wuxuu u gudbaa SCCA affiliate oo experience-gii baa ka dhiman. marka dambena wuxuu noqdaa SCCA member. intaas oo warbixin ayaanu maanta kaga hadlay oo ku saabsan shahaadada SCCA. waxaan rajeynayaa inaanu qodobadii badankooda aanu ku farqareynay. wixii su'aalo waxaad nagaga weydiin doontaan insha Allah commentiga. saasaan idinku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.